Assalaamu calaykum daawadayaal ku soo dhawaada kanaalka Salmaan Cumar. Maanta muuqaalkeena waxaynu uga hadlaynaa dhalinyarada ugu qanisan caalamka. Intaan muuqaalka gudagalin fadlan haddii aad ku cusub tahay kanaalka subscribe saar gambaleelkan furo si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub aan soo geliyo. Tani waa xog kooban aynu kaaga warinayno dhalinyarada ugu qanisan wadamada adduunka. dal jasiiradeedka Saxaraha ku yaal wadanyaraha qaniga ah xuduud dowla leh Sacuudiga dhinaca galbeed ugu yaala Asia ee saaran gacanka Bershiya. Kani waa qadar aynu muuqan kula wadaagin in xaqiiqo oo ku daahsoon oo ay maangal tahay inaadan ka ogeyn. Intaan kula wadaagin shanta xaqiiqo aan dib kuugu yar celiyo taariikhda dhow ee dalkan. Qarnigii 20aad bilowgii ayaa la aasaasihiisuna waa Sheekh Jaazim bin Mohammed Al Thani, wuxuuna ahaa hoggaankii ugu horeeyay guriga Thani. Qasriga looga taliyo dalkan weli muran ayaa ka taagan dalka waxa uu noqonayo boqortooyo ama dimuqraadi. Qadar waxaa muddo badan gumaysanayay Ingiriiska ilaa ay xornimada ka qaadatay sanadkii 1971. qarannimo ayaa lagu tixgeliyaa dalkan yar uu aas-aas u yahay gaaska dabiiciga ah, taa oo ka dhigaysa dalka saddexaad ee awoodiisa dhaqaale ku tiirsan tahay arrintan. Dadkiisa waxaa lagu qiyaasaa 2.7 milyan oo qof, balse aan dib ugu noqono shanta xaqiiqo ee halkaasi ku daahsoon. 1. Dalkan waxaa ku yaala garoonka sagaalaad ee adduunka ugu weyn, Hamad International Airport, oo ku yaala caasimadda Doha ee dalka. Waxaa si rasmi ah loo furay sanad 2014 goorta oo la xiray garoonkii qadiimiga ah ee caasimadda. waxaana garoonkani tirada dhoofayaasha uu qaabilo sanadkii lagu qiyaasaa 50 milyan oo qof, taas oo ka dhigaysa garoonka labaad ee gobolka ugu weyn marka laga yimaado kan Dubai. waxaana la sheegaa in garoonkani uu yahay mid casri ah, lagu dhisay lacag gaaraysa 17 milyan oo dollar, waxaana ku yaala runway-ga ugu weyn adduunka ama jidka diyaaraduhu ku ordaan. 2. Sharciyada adag ee dharxirashada dalka waxa uu leeyahay dhinaca muwaadiniinta ka oo loo sameeyay xeerar ilaaliya dalka. waa dal muslim ah. xeerarka waajibka ku ah ragga waa inay xirtaan qamiis cad iyo cigaal, halka dumarkuna ay xirtaan abaayad dheer oo madow. xitaa haddaad tahay dalxiise lagama ogolo inaad ku qaadato dhar gaagaaban. 3. Qatar waa dalka ugu shidaal jaban adduunka. dalkani waa mid ka mid ah wadamada hogaamiya soo saarista gaaska dabiiciga ah, waxaana la sheegaa halka litir uu joogo 57 senti, ka oo ah kala bar qiimaha halka litir uu ka joogo Mareykanka. 4. Duulaankii Sacuudi Arabiya ee ka dhanka ah Qatar waa mid si joogto ah uga cabsi qabta duulaan ay kala kulanto deriskeeda. dalalka Bahrain iyo Qatar waxaa wada gumaystay dalka Boortaqiiska bilowgii 1520kii, ka hor intii aan boqortooyada Cusmaaniyiintu dalkan ka kicin gumaystay Boortaqiil. intaa wixii ka dambeeyay dalkan yari waxa uu marar badan hujuumo dagaal kala kulmay dalalka deriska la ah ee Carbeed. 1787kii weerar toos ah Sacuudiga ku qaaday Qatar, ka oo sababay dhimasho iyo qax kala kulmeen Qadariyiinta. 5. Qatar waa dalka adduunka ugu qanisan, inagoo xiganayna natiijada ka soo baxday cilmi baaris ay samaysay hay'adda International Monetary Fund, taa oo muujisay in dalkani uu yahay waddanka adduunka ugu qanisan. daawadayaal waxaynu soo gaarnay gabagabada muuqaalka oo aynu uga hadlaynay wadanyaraha ugu qanisan caalamka. si aan u soo badino muuqaalada noocan ah fadlan subscribe kanaalka.